sheegtaa marka hore magacaaga oo saddexan. xasan muxudiin xasan. xasan muxidiin xasan. haa waayahay xasan goormaa lagu soo qabta? habeen hore 3 saac. haye maxaa lagugu soo qabtay? waxaa la igu soo qabtay maxaa ahaa madaxtooyada wax ka dhacay muxuu ahaa dagaal ka dhacay meeshaas darteeda la soo qabtay. dagaalkaas siduu dhacay iyo lugta aad ku lahayd adiga bal sheekadaas nooga sheekay. anigu gaariga uun baa waday. gaarigu noocuu ahaa? nooh imise qof baa kula socota? aniga waxaa waa rag la socda maysan jirin, laakiin ragga waxaa waa rag aniga la ii soo diro oo si handada la igu soo saaray ahayd. raggana meesha geeya uunaa la igu dhahay. meesha markaa geena ayagaa meesha nimankan ayagaa dantooda qabsanaya isaga soo tag. haddii geena waa kasoo tegi waa meel siduu dagaalku bilowday. waa gartay. marka imise nin baad wada marka adiga? nimanka 3 ay ahaayeen. 3. haye marka 3 hore muu taqaana? may haye waa uun la ii soo saaray markaas. xagee lagaaga soo saaray? meel wada ayaga joogaana kasoo qaada la igu dhahay. meesha wadada ka soo qaaday meeshii oo waxay to halkaan geeya la igu dhahay. wadada iyo halka aad ka soo qaaday ma noo sheegi kartaa? wadada boondheer waay. boondheere. marka ma iyagoo qoryahooda wataad wadada ay taagnaayeen? ayagoo qoryahooda tahaa sida askar u labisay meesha taagnaayeen. tutaa ciidanka wateen? ana hore una soo qaaday meeshaan in la keeneen ahayd. imise saac bay ahayd markaas wadada kula kulmaysa? 12 saac iyo bare ahayd dhankaan usoo deganaysa waxay 12 usoo deganaysa. 12 saac bar. marka halka aad ka soo qaaday si rasmi ma noogu tilmaami kartaa? wadada degmada boondheere. wadada marka waxay la dhaafahaa iskuuska waxaa la dhahaa Dr. Cooke. kadib markii ay baabuurka soo fuuleen wixii ka dambeeyay ma nooga sheekeyn kartaa meelaha aad soo marteen iyo sida wadada caadi una loo soo maray meesha u soo marnay meel kale oo gooni ma soo marin. haye halkeed kaga soo dhacdeen wadada madaxtooyada soo gashay? wadadan caadiga waxay ahayd oo tiyaatarka hortada mareysaa soo marnay saas una u soo galnay. kadibna meeshii meeshiina una tagnay. sideed kaga soo gudubteen birta sida baabuurta usoo gudbaan usoo galnay oo orada iyo si iskawaalmo usoo galnay caadi usoo galnay. adigaa lagu yaqaana? aniga haddii waa la yaqaana. haa waa gartay. marka adigu ma waxaad joogi jirtay madaxtooyada? madaxtooy shaqadeeda. maxaad ka qaban jirtay? kambani ugu shaqeynaa meesha. kambanigee? kambani hormuud. hormuud maxaad u qaban jirtay marka? bit ismaana u ahaa. haye muddo intee laagad u shaqeynaysa? hormuud shirkadda waa u shaqeynaya 10 sano 2006 ilaa hadda 10 sano u shaqeynaya. 10 sano shaqaale rasmi ah markuu shirkadda ka tirsan? waayahay marka waxaad iga warantaa markii aad madaxtooyada birta kasoo gudubteen ilaa aad kasoo gasheen gajeelka madaxtooyada adiga iyo imise qof baa kula socota? intii aan kuusoo sheego inay la socoto waxay ugu soo kordha malahan. wax caqabadoo aad la kulanteen ma jirtaa? may haye qoryahooda iyo waxbana ma qarsaneen? qoryahooda u qarsaneen baawarka ku qarsadeen. haye marka ma dhar shacab bay wateen ayaguna? may waa ciidan ahaayeen soo kumaandeen. haye cidna kuma weydiin maxay yihiin nimankan? may cidna ma arkinba haddii la arki lahaa waxbay ahaanayd. haye kadib madaxtooyada xaggeed ka tagteen? madaxtooyada waxaa ka tagnay meeshaan oo anaga xafiiskeena agteeda ka tagnay. meel barxadda ka tagnay meeshaas inaa ku deji ahayd markii intaan la degana wixii ay meeshii ay ku fashilmeen meeshiina isqabsi dagaalka bilowday. waana kasoo carartay anoo kasoo cararaya meesha oo aniga dhaawac igu soo gaaray gaariga kasoo degta hore isaga soo carar shaqsi keligii anoo ah. dhaawac xaguu kaa gaaray? xaguu kaa gaaray? xajirka. waa gartay. gaariga adiga aada waday oo adiga aada lahayd kadib wuu qarxay ma ogeed qaraxa? gaari wax qarax ma saarneen asiga ku xiran laakiin wax adiga nimankay wateen oo sida bambooni iyo miinooyin wateen oo ku qarxa gaariga. inay ka dejistaan laakiin miisan ka dejisano wixii way saarnaayeen iyadoo saaranaya saxbada ku bilaabatay wixii saarnaa inay ku qarxeen taas aaminsan laakiin gaari qarax ma ku xirneen oo gaari aniga oo caadi wato ahaa. waayahay marka qaraxaasi dambe ee dhacay waxaad aaminsan tahay inuusan gaariga ku xirnayn alaab saarnayd inuu yahay? haa wuu saarnaa.
marka adiga maxay kugu sheegeen nimanka ujeedkooda meesha ay usoo galayeen iyo cidda ay ka tirsan yihiin? nimanka ujeedkooda horta meesha inay tagaan ahayd. ana ogaashadeeda waxaa ka ogaa nimankan meesha noo geeyey intaas geesmada bas nooga qaab qaado markaa meesha geesan ayagaa shaqadooda qabsanaayo intaas ahayd. marka al-shabaab bay ka tirsanaayeen nimanka haa al-shabaab ka tirsanaayeen. sidaas waad u ogeen? nimanka haa waa ninka ila soo hadlaayo al-shabaab ahayo wuxuu nimankaa meesha geeyo dhahay. haye xaguu jooga nin kula soo hadlay? ninka la soo hadlaa meeshuu jira shabaabka jiraanuu jira hadda meel gooni ma jira asiga magaalna ma jooga. kuma ahaa ninkaa marka? ninkaasna waxaa waaye oo waxaa waaye siidiga cabdirasaaq dhahay waaye. cabdirasaaq maxaa loogu daray? ya maxaa loogu daray? cabdirasaaq saciid ibraahim hadna. haye marka adiga walaashaa qabaa? haye marka ninkaas asagaa hawshan kuu diray? asiga waxaan dhihi gelshaha. muddo intee la-eg bad adiga al-shabaab la shaqeynaysa? wallaahi shaqo badan oo la shaqeynayo oo sanada ma ahayn laakiin hal sani barka hore oo meel ku dhawaada soo waciyay niyo shaqada in la qabataa rabaa niyo waxaa dhahay ninka bin u shaqeeya ahay waxaas waxaa qaban kara maahan oo ku ceebay baa iga dhaaf. nin wuxuu dhahay ma aanu dhahay waxaa u malaynaysid taleefon una iskala hadlaynaa bas wax kale ay samaynaysan malahan. intaas una ahayd anaga taleefon waa kala hadla laakiin inaad cid kale iskaga barto ama cid kale ila hadashiiso ama cid kale iskaga tusto diyaar uma hayaa dhahay. saddexdan nin ay kula socotay gudaha madaxtooyada ku dhimatay magacyadooda ma taqaanaa? weligii ma arkay maantaas ka hor. intii aad la socotay maxay isku kaasheen? dabcan waad isbarateen magacyaday kuu sheegtay? maba isla hadlinba anaga nimana shaqo loo soo dirtay ahaayeen. annaga waxaa waa shaqadaa qabanaya meeshaa nimankaa noo geey kadibna isaga soo tag adiga. okay kadib marka aad gasheen gudaha madaxtooyada waxaa idin yimid askari dood ayaa idin dhex martay soo sidaa maaha? askarigaas ma xasuusan kartaa ay dood idin dhex martay? askariga xasuus muuqaalkiisa ma xasuusan kara laakiin ninkan askariga nin kamidoo gaari marka hore kooda kasoo dego wuxuu dhahay ninkaa maana fahmin saas darteeda marka wadahadal noo dhex maray. haye waan isfaham weyne meesha. wadahadalkii ma nooga sheekeyn kartaa wax idin dhex maray? wadahadalka ma wadahadal badan mu ahay ninkaa ma fahmin uun ahaa wadahadalka. haye yaa u jawaaba marka adiga? ninka ana u jawaab ninkaa nin askari waaye dhaafaa dhahay. wixii kalena asaa weydii kartaa meeloo ka tirsan asaa kuu sheegaa weydii intaas unaas dhex mar. waa ka hadda kadib marka ninkii askarigaha bartiyaa lagu dilay sooma? ninka askarigaha meesha xabad ka bilaabta waa asigaha. haye marka waxaa dilay ragga adiga kula socda? ninka askariga oo nagu soo baxaa maya lama di ninkaas. ninka kale oo la soo baxay oo aniga oo bagaar nala saarnaay kaasaa askar kale inta kusoo baxday asxabad ku dhufteen xabadii markii qolihii kale gaariga saarnaan xabad bilaabeen sidaasaa kusoo cararnay. waa gartay shaqooyin badan oo dhowr aad uga qabatay shabaab gudaha madaxtooyada iyo qaybo kale oo magaalada ka mid a waa kala qaadi doonaa. madaxtooyada waxaa si joogta usii jirtay warbixinada al-shabaab gudaha madaxtooyada ku saabsan. warbixinadaasi aada bixin jirtay maxaad nooga sheegi kartaa? warbixin hadda aa baxsho oo muhiima ama warbixin meesha ka sheegay oo dhaqan gasho ma jirto laakiin waxa aa sheegay ad meeshaas qofka tagto aniga xafiiskeenaa tegeen waxaa ka sheegna meesha ma aali moogtahay laakiin shaksi ad waxaas weydiima iska caadi waaye laakiin wax riboor aniga aa qoraa u gudbinaya iyo waxaa iyaga sugaayeen iyo waxaas dhamaysan jirin. tusaale ahaan waxay ku weydiin jireen wasiirada oo kale meelaha baabuurta dhigtaan soo? may waxaas ma weydiin. okay macluumaad ku saabsan wasiirka gaashaandhigoo ku weydiiyeen iyadan? kaliya waxay weydiiyeen xilliguu soo baxa kaliya mataqaanaa bis ana waxaa dha mala control karaa dha aniga brotocolkoodana kamid maayo marka saas darteed ma ogaa karo waxaana aanu yeeli karin. qofka ay daneynayna ku weydiineen ninkan gaashaandhiga oo wasiirka? haye marka maxaad macluumaada ka siisay? ma ogaa karaa ku dhaa bis waxay iga weydiiyeen bixitaankiisa xilligeed ma ogaa karta ma ogaa kara kaliya bis. waa gartay qoyskiin adiga maahan ayaa kaloo shabaab ka mid noqda? qoyskiin hadda wax shabaab oo jooga madaxan. waa gartay imisaa ku dhimatay iyagoo shabaaba? qoyskeen wax ku dhinto shabaab hal wiil oo aan iga ahayn ma jirto. waa gartay waxaad iga warantaa waxaad kaloo jiraa inaad ku lug lahayd weeraro dhowra oo ay ka mid ahaayeen kii hodheelka Maka al Mukarama
weerarkaas maxaad nooga sheegi kartaa doorka aad ku lahayd waxaasni weerarna ma ahan waxaa ku lug lahayna ma ahan sahan baad ahayd aniga wax oo meeshaas aa ka geysto meeshan weerar kama dhicin qaraxa ka dhacay meesha qaraxa ka dhacan hadda mees wax kale weerar aniga oo ka qayb qaatay iyo waxaas iyo wax meesha diyaalo ma ahan marka qaraxaad adiga door ku lahayd doorika kuma lahayn ani waxaas maxay ahayd marka kaalintaada nooga sheekay hoteelkaas maxaad ka qabatay hoteelka aniga waa agmar uun kaliya bis wax kala sheegay waa soo fiir bis haye maxaad ku aragtay markaad agmartay wax gooni kuma arkin hoteelka siduu ahaa una u sheegay hoteelkan hoteelkiisa yahay waxa meesha gooni aysan jirin intaas bis waxaana shaqada ma ahan moogtaa qofka inaa hayato wax asiga kuu diran ma sheegi karta waxay kuu diraan waxaa waaye intaa ka ogtaa sheegay intaan ka ogeyn makuu qasbayaan waa gartay marka aad horumartay kadib aad warbixinta siisay haye hoteelo kaleo iyaguna waxaa jira sida oriental oo kale oo iyagana aad qayb ku lahayd maxaad nooga sheegi kartaa sida aad iyagana uga qayb qaadatay qayb qaadashada maahan ani nin qori watameynimo wax qarxina ma ahayn laakiin waa kuu sheegaa waan fahmaa wax hadal waxaan ahayn aniga meesha maan geysan orientalna iyagaa kuu diray sooma maxay ka danaynayeen markaas kuu diraayeen oo kuu sheegay wallaahi adiga sheegitaanka dadkaas waxay kuu sheeganaa ma lahan waxaad wax ayaga u khaas waaye maxay adiga ku dhaheen markay shaqada kuu direen may meeshaasiiti noo soo fiiri bis maanta ma tegi kartaa ma noo soo fiiri kartaa bis haye meesha haddaad tagtana waxaad ka soo aragta markaas ama ka jiro oo unoo gudbine waa gartay intaas ahayd marka meeshii waa aad tagtay ma tegin waa maray bisa kadibna ciidanka banaanka jooga wixii baad uga warbixisay meesha in si loo joogo una u sheegaha waa gartay markaas inay taliyaasha ku jiraanna waad u sheegtay sooma ya inay taliyaasha ku jiraanna u sheegtay ma sheegi karo walaa wax ku jira laakiin banaanka una aniga ka hadlaama wax gudaha ku jira waxa ogaa kara maaha meelo kaleo iyagana aad sahmisay ma jiraanoo bara kale sida hoteello ama xarumo kale oo aad ag martay xitaa ugu yaraana noo soo fiiri ku dhaheen waa gartay shaqadaada marka adiga waxay ahayd inaad sahan qabato sooma ani teleefon ugula shaqeey bisa ahayd ujeedkeena okay teleefonada marka telefoonka unbaad warbixinta kusii jirtay ayaga soo wici jira xitaa teleefonkooda waa xitaa maan aqaano ayaga markay danka haleyn kusoo wacayaan waxay kusoo weydiistaan jawaabteena ayagaa kusoo wacayaan saas una ahayd maxaad ku bedelan jirta xogtaa inaad siiso walaa waxaa ku bedelay jir ninkaas oo sidaas oo igu soo galay sidii aan dhankeeda isoo maray uun maahe waxaad yartaa lacag aniga ay ugu baahnaa ma jirto nin shaqaysta ahaa iyaga meeqay ku siin jireen wax isii ma jirin waxay isii jireen wax macnaa ma waxbay isii jireen aniga ma jirtaa inay ku siin jireen bishii lacag $200 may iska oo caadi maaha okay laakiin gaariga aad wato iyagaa ku gaday gaariga anigaa gatay ayaga wax una iga siiyeen meeqay ku siiyeen markaad gaariga gadanaysa waxay iga siiyeen maxaan lahay adi kala bar gaariga anaa gata kala barna igaa siiyey imisay ku siiyeen markaas imise kala bara isiin gaari afara ka baxshay kala bara isiin waayahay shaqooyinka aad qabatay ugu waaweynaa dhinacyadan sahanka aad ka geysatay oo warbixinada ay kaaga dirtay waxaa ka mid ah baarlamanka ma nooga sheekeyn kartaa iyagana sidii aad halkaas waxay kaaga direen baarlamaanka wadda dadka maraan waa qof kastoo martan meesha waxaa waaye way arki kartaa wax meesha ka jiro waa uun mare wax aad ka soo sheegana ma ahayn sidaa deertaan oo meesha maritaankeeda labada laamin dhinac la maraa dhinaca kale caadi taabis intaas wax ahayn oo ka sheega ma lahayn iyaga markay kuu dirayeen wadada la marayay waxbay kaa weydiiyeen meesha maraha meesha la maraa bisa meesha markaa marta xagee marta meel heblaaya mara bis waay okay marka waxaad u sheegtay wadada sida ay tahay ya sida ay wadadu tahay baad u sheegtay waxa aad u sheegtay ma noo sheegi kartaa haddaba waxaas waxaa sheegi kara maahan intaa kuu sheega leba maxaa kale ogsan wadada inaa mara bisaa sheegaa ku dhahay wadada si u joogaan waad martay siday u joogaan iyo tirada ciidamada aad u sheegtay imisay dhammaayeen inay meesha joogaan wadada dhan ay ka xirantahay dhanna waa ka furan tahay ciidan boolis intaas lag camalaa oo tiradaas camalaha sheegay laakiin waxaad dirtaan oo aniga tirshana maahan qiyaas baad samaysay oo haa ilka qiyaas imisaad ku qiyaastay markaas ciidanka meesha jooga ciidanka booliska adii tobaneeyaa ku qiyaasay marka sidaasaa warbixinta ugu gudbisay amisoonta iyagana maxaad uga sheegtay markaas oo meesha amisoonta max banaanka jooga la arki kara maan laakiin inay meesha degan yihiin una u sheegay waa gartay marka waxay ahayd waqti saacado ka hor intuusan weerarku dhicin soo maaha baarlamaanka
maalmo ka hor waa xilli baarlamaanka markaas uu fadhiyay ahayd maalin si uu fadhiyay ahayd laakiin maantaas ma ahayn. okay dabcan marka haddii ay su-aalo kaa soo weydiiyeen magaaladan weerarada ugu waaweynaha ay ka geysteen al-shabaab taas macnaheed waxay tahay inaad wax ka ogeed weerar kasta oo ka dhacaya gudaha magaalada? wax ogaalka ma ahan qofka wuxuu ogaanayo oo loo soo sheegayo. ayaga dadkan ma ahan dad oo qof kasta oo xero u sheeganayaan. kaliya waxay dadka kaaliin bis ku soo sheegayaan meeshaas aan rabnaan ku dhahayaan meeshan waa u baahan hadda iyo xilli kale ku dhahayaan laakiin meeshaas adiga maanta haday xataa meel soo marta ama biri wax ugu soo sheegto waxa laga yaabaa inay bilooyin kadib meesha fiirsadaan wax ka qabsadaan. imise sanaad marka al-shabaab sidaas kula shaqeynaysa? ani sanad iyo barcamal waa ama 2 sano ku dhawaad waa. okay weligaa ma ku fikirtay inay khatar kaaga imaan karto la shaqeynta kooxdan al-shabaab? marka hore ku fikiray bilowga hore ninkaas ila soo xiriirayay kadib laakiin cabsida ka muujiyay waxay ahayd inaan qof kale barin asiga cid ahayn ila soo hadlin. aniga nin shaqeystaa magaalada in badan dhex joogo dadka badan waa yaqaanaan marka ma aan ahayn inaan qof barta kale magaalada joogto. marka saas darteed waxaa waa hadda ila soo hadlaysid oo kula shaqeynaa hadal ahaan wax kaloo shakhsi oo ila soo hadli karaan ama tusi kartaa ama bari kartidna ma jiraan. saas uuna intaas waxaa u maleeyay inay hay'ad wax lagu badbaadi karo laakiin ma dhicin hadda hartaa way noqoto saan. waa gartay dadka kale kaala shaqeeya BTS-ka Hormuud ee meesha ay ku leedahay wax ay kaala ogaayeen ma jirtaa shaqadan? dadkaas may shaqo una anaga dhexaysa. dadkaas shaqo una anaga dhexaysa waxay shaqadan xaaskii xataa ka ogaan taleefankayga ku hadlay. marka telefoonkaaga ayaad isticmaali jirtay mise lambaro kale lagu aqoon baad isticmaali jirtay? lambaro kale isticmaalkooda adiga isticmaasha adaa markaas waxaa waa noqonaya si qof si kale laakiin taleefankayga caadiga marna ma dimi jirin asiga online ahaa ayagan taleefon ma lahayn oo aniga ku aqaano ka wacaya ayaga ku soo wacan xilliga ku baahan yihiin. waa gartay marka intii aad la shaqeynaysay kooxdan al-shabaab ma jirtaa wax khatar ah oo la kulantay marka laga reebo midda hadda madaxtooyada kugu qabsatay? weligii tan ka hor wax adiga oo shaqo aniga ku lug leeyahay ama shaqo aniga hor wado weligii tan ka dhacay tan waxa waaye tan hadda meeshaan ku jooga waaye wixii ka hor aniga shakhsiga kaliya aan magaalo iska maraayo una ahayd wax cid ila shaqeynaysa ama cid markaas hor socotay ma ahayn laakiin tan bas ay ugu weyneed waxa uu qabta aniga. waayahay madaxtooyada kan waxa ka horeeyay weerar ka dhacay oo masjidka madaxtooyada lagu soo qaaday weerarkaas ka hor intuusan dhicin su-aalay kaa weydiiyeen gudaha masaajidka cidda ku tukata maxaad u sheegtay markaa? gudaha cidda ku tukata ayaga baa ogyihiin laakiin masaajidka ma tegi kartaa bisay dhaheen ma tegi karaana dhahay. masaajidka cidda ku tukata waa qof kastaa taqaan. marka maxay kaaga sheegeen adiga marka ma tegi kartaa bis masaajidka ma ogaa kartaa masaajidka ma waxaa gelitaankiisa ani ma geli karaa dhahay. waxaad sheegtay masaajidka in la tegi karo tusaale ahaan warbixinta aad siiso waxay radaad nooga tahay masaajidka ma tegi kartaa bis iga weydiiyo waxaa masaajidka ma tegi karo xilligaasna waxaa waaye xilli shaqo guud dadka haystaan wax la tegi karo maana dhahay. kadib markuu weerarku dhacay way ku soo waceen sooma? weerarka markuu dhacay adiga maalmo kadib ay soo waceen meesha waa tagtay maxaa meesha ku dhintaa maqashay waxaa aniga 2 askari iyo 2 nin oo kale waxay tahay ayagana mas'uuliyad meesha ku dhintay sadeeta okay waaye aniga waxaas wax ka badan camal ahayn laakiin intaas de ku sheegna cayaar waa iska dhaafay askarta waa iska sheeganaysa xamal. waa gartay ma la kulmi jirtay dadka shabaabka ka tirsanaya aad la shaqeynayso? ninkaas taleefon ila soo hadla cida ahayn xitaa la hadla ma jirto kulan marka hore waxaa dhacay cid la hadli karto oo adiga ahayn iyo waxa ay bar karto ma jirto. lacagta sidee kugu siin jireen qaabkee? lacag sii jireen hadda weyn oo aan lacagta qaato aaba ka weyn waxa siinayaan laakiin ma ahayn wax adiga mushaar siinayaan ama lacag ani u baahanaa siinayaan qaabkee kugu siin jireen? lacagta wala kuliyay xilliga soo maagaan maxaa u baahan tahay iska weydiinayaan markaas taleefanka wana u soo tuurayaan cid ii keeni ka jirto waxaas ma jiraan taleefan isku tuuro. $2,000 telefoonku ma qaada sidee kugu soo gaarsiin? taleefanka wuu qaaday ma waa gartay marka 2,000 telefoonka kugu soo shubay ma jiraan laakiin wax kufoolad la kulmay ma jirto. hadal ninkaas isdhex dhaafsan waxa ahayn oo nin kale xitaa weligiis imuusan xiriirin ujeedkana balanta marka loo galno wuxuu inaa cid kale weli hadashiinka tustaan iska dhaafay tan hadeertaan oo dadka inaa soo qaado oo ku dhiirado soon bilowgiis ilaa hadda waxa waaye
igu celcelinayeen qofka marka wax lagu celcelishan marka dambe waa ka bataan saasay ku dhacday. waa gartay marka go-aankan marka aad qaadanaysaa inaad nimankan weysan soo geliso madaxtooyada ma istir waxa kaaga imaan karta khatar marka horaaba dhalashanaay maalinta ugu horeysa hadaaba khatar inay ka imaanaysa aan u qaadi karin. maalinta ugu horeysa soonka bilaagiisa yeeli lahaa laakiin soonka bilaagiisa laha deertaan aniga waa ka meermeeraya waxa yeeli kara ma ahan camal saas u sheegaa. waayahay weligaa adiga intii aad kooxdan la shaqeynaysiiyo ka hor marna ma lagu tuhmay oo ma lagu xiray? nin wax laigu tuhmay wax aniga iga cad ma sameynayn. nin qorawatana maahay, nin wax oo qarxinaan ma ahayn. nin shaqadiisa aadoo taleefon wax ay ka weydiiyaan una ahay. weli ma lagu xiray? may wax mana xirin. waqtigii ka hor shabaabkan maxkamadii miyaad ka mid ahay? ani kambanigaana 10 sano u shaqeynaya. waxaa dirtaan intaan oo ininka ila soo hadlo sanadkan dambe ama waxaan ahayn ma shaqeyn. waa gartay adiga intee deganad marka? ani waxaa yaaqshida degnaa. degmada yaaqshid iyo maamulkeeda iyada laftigeeda waxbay kaa weydiiyeen, shaqay kaaga direen, ma noo sheegi kartaa? waxaas iska hadale waa mehe wax iga weydiiyeen hadda guuda ma jiraan. waxaa la ogyahay hebel oo meesha gudoomiye ka la ogyahay wax qarsan maahan moogta. gudoomiyaha kan cusub ay ku weydiiyeen? may kii hore waxay dhahay ninkaas degmada sooma imaado haya degmada imaada laakiin cidka wax ka ogaa karta xilligu imaanayo oo meesha ka shaqeyn ma jirtaa dhaha ama ka ogaa kara aniga. waa gartay adiga marka hadafkaagu ma wuxuu ahaa inaad camalkan diin ahaan u aaminsanayd mise inaad khidmad ku qaadanaysay? noo kala sheeg. niyu khidmad lacagna uguma baahneen haddii aa aaminsanaana meeshooda joogi lahaa laakiin waxaa igu kalifay ninkan asi oo haddana waa horan xaafadna waa isku ahayn seedina uu noqday wixii asiga ahayd ii hoosaasiyey. waxaa is dhahay waxaana hadalkan uun hadda wax kaa biibna waaye iskala hadal uun may waxaa aaminsanahay oo weliga aaminan ma ahayn. waxa deertaa walaalkay ku tegoona ahaa ana raali kama ahaynba. marka adiga camalkan ma aadan aaminsanayn inuu yahay mid alla loogu dhawaanayo sida ay shabaab badan aaminsan yihiin? ani aaminsanaan oo iga dhaadhacsana ma jirin barnaamijkaas oo shabaabnimada laakiin ninkan taleefon niyu kaama rabin taleefon un igala hadal bas. okay inaad la hadasho oo laftigeeda su-aalo ku weydiiyaan haddii aadan u aaminsanayn inay tahay waxaad diin ahaan aadan u aaminsanayn iyo caqiida ahaan maxaa danoo kugu jira waad noo sheegi kartaa? dad badanaa ku dhegeysanaya ama ku daawanaya maxaa u sheegi kartaa danoo meesha kugu jiro? wallahi wax danta meesha igu jirta ani ma ahayn inaad nimankaas lacag ka helo laakiin danta igu jirta nimankan waxa oo adinkaas diinmadiisa iyo wuxuu ii soo maray oo intaas soo saasay saaxiibtinimo oo waa hore ahayn ma ahane wax kale hadda lacag ka dheefay iyo ma og wax yariiso sii jireen baa warkaas ii gaday waxaasina ku raacay. laakiin waxa deertaan oo sii buuxo oo nimankan la shaqeynaya waxaas ka helay ma ka helin mana jirin. ugu yaraan bishii $200 inay ku siin jireen baa naloo sheegay, ma jirta arrintaas? bishii oo wax dheeli maahan moogta ayaga niman dhaqaale haysta maahan. markii adiga hayto bishaan aniga bishaan waa qaadan laakiin bishaan markii adiga dhex maraysa ama dhama rabto lacag ku siinayaan waay oo ku dhahan intaana ba ku soo gaartay ban iska qaadan. meeqay markaa lacagta hadba sii ku imaanay laakiin cadadkeeda 200 ay hayto u badantaa. 200 waa gartay. hadda goorma kugu dambeysay lacagtaas lahayd? ma qaadan hadirtaan bishii hore kugu dambeysay. okay hadda shaqadan hadaad fuliso maxaa ballan qaado haysatay? maya shaqadan hadaad fuliso ballan qaado ay ka filaan ma jiraan. shaqada baqasabay weed ma aniga waxaa dirtaan ballan qaad intaas soon ilaa bilaagiisa lagu celcelinahay. qofka marka wax lagu celcelishana waxa waaye marka dambe uu jilcoona intaas ugu celcelinaa me waxa dirtaan niyo hadaa sameysay xitaa intaas ku siinayna waxa xitaa qaadan lahaa ma ahayn. laakiin waa iga hoos baxday baash. hadda ugu dambeyntii waxaad ku jirtaa gacanta dowladda Soomaaliya, maxaad filaysaa? kuleeyta waxaa filayaa dad qofka bini'aadamka wuxuu sameeyo ay dadkan ayaga xaggooda waxa u yaal moogtahay sharci waxay sharcooda ka qabanaa filaamee wax kala deertaan af filayo gooniye ma jiraan. muu aragtaa laakiin dalka dambi laga galo midka ugu weyn inaad gasho oo aqalkii dalka looga arriminayo aad gacan ka geysteen la weeraro? taas waa mid lagu qasbamay aniga ujeedka ma baahan wadankeena wiliga wax ka sameeyo waxaa aaminsanahay maxaad uga jeedaa waa mid lagu qasbay? qasbitaanka nala shaqeeya hadda kastoo aad handadaadna oo raacsan tahay
soo ma awoodin inaad sheegto dahda dhibaataan haysta walaa kuleyta dhibaatada hadda soonkaan igu soo badata mee ka hor waxaa dhibaato u dareemaa ma ahayn taleefonka la hadalkooda waa gartay marka ma u aragtaa inaad gashay dembi waa arkaa qof kastaan arkayso inaan dembi tahay culayska ay leedahayna waad dareemi kartaa in aqalkii madaxtooyada aad fududeyso in la weeraro adigu weliba lagu aaminay dembi inay tahay waa dareensanahay ee khalad weyn waayo kuwa kaa dambeeya al-shabaab ama ka mida ama sidan oo kale ula shaqeeya ee laga yaabo inay ku fikerayaan falo noocan inay samey maxaad dhihi lahayd iyagana koley waxaa dhihi lahaa de waxaa waaye ayaga waa laba qole iska soo horjeeda ma ogtahay ninkasta mabda ayaga ku dagaalamayaan nin mabda ku socdan hadda waxaa u sheegay qaadan maayo marka koleyta waxaa waa mabdaiisa ninka sabkiisa haysta le waaye waa ninka tanaasuleyna asigi waxaa yeelkiisa waa al-shabaab imise qofaad adiga kala hadli jirto xiriirka leh hadda hal nina kuu sheegaa ku dhahay mee qof ninka labaad isna oo cabdirasaaq la dhashay isaguna xiriir noocayaa kaala dhahay ninkaas isku xaafad ahaan mehe wax kaloo naga dhexeey malahan waa hore isku xaafad ahayn isaguna al-shabaab buu ka tirsan al-shabaab inuu ka tirsanahaa taas waa qof waa cadda taas uu ka tirsan haddana al-shabaab ahaan uu xiran yahay muhu waa gartay adaa mahadsantahay